daawadayaal ku soo dhawaada janalka wararka Soomaalida waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa dhacdooyinka xanuunka leh ee magaalada Gaalkacyo ka dhacay 5 bilood ee la soo dhaafay ay ugu xanuun badneed falkii foolxumada badnaa ee loo geystay Caaisha Ilyas iyo waliba xalay oo ugu dambeysay oo magaalada Gaalkacyo lagu dilay gabar waliba loo adeegsaday dilkeeda Toorey iyo wararkii ugu dambeeyay magaalada Gaalkacyo iyo sida shacabka ay u hadalhayaan ayaan idiin soo gudbinaynaa daawadayaal wararka laga helay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in xalay koox dhalinyaro ay Toorey ku weerareen mid kamid ah gabdhaha ku nool xaafadda Garsoor ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo kooxdan ayaa gabadha oo ka soo baxday salaada taraawiixda waxay Toorey ka geliyeen dhuunta waxaana gabadha oo lagu magacaabi jiray Nimco Cumar Shire Xuurey ay u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray weerarkaasi goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in raggii ka dambeeyay falkaasi ay goobta ka baxsadeen dilka kadib waxaana goobta tagay oo markii horeba dhaawac ahaan goobta uga qaaday ciidamo ka tirsan booliiska Puntland balse ay isbitaalka ku geeriyootay alla dhacdo xanuun badana ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda dilka gabadhan yar iyo sababta loo dilay hase yeeshee haweenka kale ee habeenkii aadi jiray salaada taraawiixda ayaa waxa ay sheegeen inay cabsi soo wajahday mas'uuliyiinta maamulka magaalada Gaalkacyo ee maamulka Puntland weli kama hadlin falkaasi waxaana uu qayb ka yahay falalka amni daro ee markasta ka dhaca magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug dhinaca kale dhacdadan xanuunka badan ayaa si weyn looga hadalhayaa magaalada Gaalkacyo iyadoo shacabka maanta ay isaga sheekeynayaan sida ay wax u dhaceen magaalada Gaalkacyo waxaa sanadkan ka dhacay dhacdooyin xanuun badan oo inta badan lagula kacay dadka birmageedyada ee aan la ogoleen in la dhibaateeyo sida haweenka caruurta iyo dadka da'da ah dhacdooyinka kale xanuunka ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xasuusta murugada la reebay waxa kamid ah dhacdadii lagu kufsaday laguna dilay Caaisha Ilyas Aadan oo 13 sano jir ahayd 25 bishii February ee sanadkan ay ahayd markii koox dhalinyaro arxan laawiyaal ay kufsadeen Caaisha Ilyas Aadan oo adeeg suuqa uga doontay hooyadeed waxaana gurigooda uu ku yaala magaalada Gaalkacyo hortiisa la soo dhigay meydka Caaisha oo si xun loo soo jirdilay la soo kufsaday halka reerkeedana ay baadi goobayeen maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa xukun dil ku riday raggii ku eedeysnaa kiiska Caaisha Ilyas Aadan oo sanadkan horaantiisa kufsi iyo dil loogu geystay magaalada Gaalkacyo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Nugaal Sheekh Cabdi Nuur ayaa ku dhawaaqay xukunka ragga la xukumay ayaa kala ah Cabdi Fitaax Cabdiraxmaan Warsame Cabdi Salaan Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdi Shakuur Maxamed Dige waxaana lagu xukumay dil toogasho oo ay fulisay dowladda Puntland maxkamadda ayaa sidoo kale fasaxday 7 nin oo kale oo kiiskan ku eedeysnaa kuwaas oo ay dambi ku weyday dhanka kalena qaramada midoobay ayaa cambaaraysay dilka Caaisha war-saxaafadeed ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha dadweynaha ee UNFPA ayaa si kulul loogu cambaareeyay dilkii iyo kufsigii loogu geystay gobolka Mudug Caaisha Ilyas Aadan oo 12 sano jir ahayd hay'adda ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay falkaasi waxaana ay dalbatay in si degdeg ah cadaalad loo horkeeno dadkii ka dambeeyay dhacdadaasi sidoo kale warbixintan ayaa lagu xusay in dilka iyo xadgudubka lagula kacay Caaisha uu tusaale u yahay dhibaatooyinka ay la kulmaan gabdhaha da'da yar ee qaaradda Afrika ugu dambeyntii UNFPA ayaa laamaha ammaanka ee Galmudug iyo Puntland ugu baaqday inay sameeyaan baaritaan ku aadan dilka arxan darada ah ee loo geystay Caaisha Ilyas sidoo kalena dhacdooyinka xanuunka leh ee ka dhacay deegaanada Puntland waxaa kamid ah nin xaaskiisa dil iyo kufsi loogu geystay Garowe oo afka furtay Cabdi Maxamed Faarax waa dhibanihii ugu dambeeyay ee ficilada foosha xun ee kufsiga iyo dilka ee ka dhacaya dhulka ay Soomaalida degto gaar ahaan deegaanada dowlad goboleedka Puntland loo geystay xaaskiisa Hodan Axmed Maxamed ayaa toddobaadkii la soo dhaaftay kufsi iyo dil lagula kacay magaalada Garowe xilli uu safar ku maqnaa dhowr qof baa isoo wacday ka hor inta aysan ila soo xiriirin gabar deriska ahayd markaas oo aan xaqiiqsaday ayuu yiri Cabdi barqanimadii marxuumada oo ifka kaga tagtay 2 caruur ah wiil iyo gabar ayaa la sheegay inay faraxumeeyeen rag dhalinyaro ah oo durba ka baxsaday goobta maamulka cisbitaalka la geeyay ayaa inoo xaqiijiyay in la kufsaday kadibna la dilay ayuu aabaha caruurtaasi hadalkiisa sii raaciyay lamaha amniga ayaa tira dad oo la xiriirinaya
falkan u soo qabtay sida laga soo xigtay Cabdi oo xusay in qaarkood dambiga uu ku cad yahay weli ma aanan wada hadlin booliiska balse waanu ballansanahay ayuu hadalkiisa ku sii daray Cabdi Maxamed dhinaca kalena shuruud adag ayaa lagu xiray in la aaso meedka si baaritaan loogu sameeyo meedka marxuumad Hodan ayaa muddo 4 casho ah ku jirtay isbitaal ku yaala caasimada dowladda Puntland gaar ahaan qolkii lagu keedinayay meedka marxuumada oo lagu aasay Garowe ayaa duugteeda waxaa ka horeysay arin aad loola yaabay sheekada ayaa ahayd in la weydiiyay qoyska mushkilada ku dhacday $300 Mareykanka ah taas oo ah in kirada qaboojiyaha uu ku jiray meedka waan bixinay sababtoo ah waxaanu ahayn dad meed u yaalay ayuu daba dhigay hadalkiisa dowladda kuma aanan wargelin ayuu sii raaciyay Cabdi oo ah darawal iyo beeraley kaas oo rajo wanaagsan ka muujiyay in cadaalad ay heli doonto marwadiisa ayaa dalbaday meel loogu soo wada jeesto ficilada noocan ee foosho xun kuwaas oo soo badanaya bulshada way u jeedaa falka foosho xun ee halkan ka dhacday balse waxaan u jeedinayaa inay ka feejignaadaan sharciga loo marayo wixii lagu qabto ayuu hadalkiisa ku soo xiray Cabdi kiiskan cusub ayaa imaanaya iyadoo wali uu taagan yahay falkii lagu faraxumeeyay Caashe Ilyas oo ahayd gabar 12 sano jirkaas oo hay'adaha ammaanka sheegayaan in baaritaankiisu meel gabagaba ah uu marayo guud ahaan marka la isku soo koobo dhacdooyinka xanuunka badan ee ka dhacay deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Gaalkacyo ayaa ah kuwa aan laga sheekeyn karin isla markaana qoysaskii dhibanayaasha ay ilaa iyo hadda ay hadalhayaan qaarkood ayaa magaalada Gaalkacyo uga guuray dhacdooyinkaasi xanuunka badan si aysan mar kale saameyn uga yeelan maamulka Puntland ayaa wali qaadin tallaabo cad oo laga hortagayo dhacdooyinka murugada iyo xanuunka leh ee ka sii soconaya magaalada Gaalkacyo iyo deegaano ka tirsan maamulka Puntland sidoo kale waxaa xusuus mudan inay jirtay gabar inta uu askari ka xeestay inta uu damcay inuu markaasi faraxumeeyo ay ka diiday uu rasaas la dhacay xubinteeda taranka taasi oo markaasi saameyn xoogan ay ka soo gaartay xubinta taranka oo rasaas lagala dhacay oo markii dambe qasabtay in loo qaado dibadda si halkaasi loogu soo daweeyo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed ayaa dusha saartay inuu daweeyo gabadhaasi isla markaana uu soo celiyo rajadeedii guud ahaan daawadayaal halkaas ayaynu ku soo afmeeraynaa guud ahaan dhacdooyinka xanuunka badnaa ee ka dhacay 5 bilood ee la soo dhaafay deegaanada maamulka Puntland